Mas'uuliyiintii dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha Puntland ee wasaaradda maaliyadda ayaa maanta kala wareegay mas'uuliyiintii hore ee xilka u hayay. Xil-wareejintan ayaa waxaa goobjoog ka ah guddiga madaxweynuhu u soo magacaabay inay xilalka u kala wareejiyaan mas'uuliyiintii hore iyo kuwa cusub. Mas'uuliyiinta maanta xilka loo kala wareejiyay ayaa ahaa sida tan: Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda Dr. Axmed Cabdi Cilmi ayaa xilka ku wareejiyay Agaasimaha cusub Axmed Jaamac Jowle. Kennedy Cali Jaamac oo ahaa Agaasime ku-xigeenkii guud ee maamulka ayaa xilka ku wareejiyay Agaasime ku-xigeenka maamulka cusub Dr. Cabdiraxmaan Yuusuf Cigaal. Abshir Maxamed Abshir, Agaasime ku-xigeenka guud ee dakhliga, ayaa xilka ku wareejiyay Cabduqaadir Axmed Xaashi, Agaasime ku-xigeenka guud ee dakhliga ee Wasaaradda Maaliyadda. Dr. Axmed Cabdi Cilmi oo ahaa agaasimihii hore ee Wasaaradda Maaliyadda ayaa ka hadlay xil wareejinta uu maanta sameynayay, waxaana uu sheegay in wasaaradda ay intay joogeen wax badan ay ka soo qabteen, halka ay maanta joogtana wasaaraddu ay tahay goob aad u wanaagsan, isla markaana loo baahan yahay laga sii ambaqaado. Markaan xafiiska la wareegay, waxaan saraakiisha wasaaradda ka codsaday inay ii soo gudbiyaan dhammaan akoonnada wasaaraddu ku shaqayso ee dakhligu ku soo dhaco iyo kuwa kharashku ka baxo labadaba, si aan ula socdo dhaqdhaqaaqooda. Jawaabtii iga soo noqotay saraakiisha waxay ahayd mid i cajab gelisay, waxaana ka qaatay fikir ah in akoonnada qaarkood ay yihiin waxa loo yaqaano black boxka oo furayaashoodiina aan la heli karin. Haddaba waxaan xilligaas isweydiiyey, haddii agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyaddu uusan la socon karin akoonnada wasaaradda ee dakhligu ku soo dhaco dhaqdhaqaaqooda, maxay shaqadiisu tahay? Xoolihii ummadda uu mas-uulka ka ahaana gacan aamina ma ku jiraan? Arrinta akoonnadu waxaase igala sii abdanayd markii aan agaasimo ku-xigeenka dakhliga ka codsaday inuu ii soo gudbiyo warbixinta mareegta ay lacagtu ku xarooto, oo markiiba ay iga muuqatay daldaloolooyin ay lacagtu ku dhumi karto. Markii aan weydiiyey akoonnada ay dakhligu ku dhacaanna, jawaabtiisu ay noqotay inuu igala mid yahay, uusan warbixin xog badan ka hayn. Arrinta akoonnadu marxalad kasta ha martee, waxaa maantay ku faraxsanahay inaan xilka wareejinayo anigoo akoonnadii wasaaradda dhammaantood ku wareejiyey bangiga dowladda. Axmed Jaamac Jowle, agaasimaha guud ee cusub, ayaa xusay in wasaaradda maalinba ay heer soo joogtay, ayna maanta meesha ay joogto ka sii ambaqaadi doonaan, isla markaana ay ahaayeen rag aan wasaaradda ka fogeyn. Laga soo bilaabo 2019 waxaan aragnay isbeddel cajiib ah oo ku yimid nidaamkeena maaliyadda guud, oo ka soo baxay nidaam manual ah oo aan horumarsanayn una guuray mid ku dhisan hufnaan isla xisaabtan. Waxaan ku bogaadinayaa madaxweynaha dowladda Puntland iyo wasaaradda maaliyadda inay kor u qaadeen furfurnaanta iyo kalsooni gelinta marka lagu jiro diyaarinta miisaaniyadda. Nidaamkan casriga ah ayaana siiyey habab xisaabeed oo muhiim ah oo sare u qaaday saxnaanta macluumaadka maaliyadeed iyo helidda warbixinno waqti kooban lagu helo. Dhammaan horumarkaas ayaa inoo sahlay inaan qaadanno go'aano ku salaysan warbixinno maaliyadeed oo dhammaystiran. Mas'uuliyiinta kale ee wasaaradda ee maanta xilalka la kala wareegay ayaa xusay in muddadii ay shaqaynayeen ay wax badan ka soo qabteen wasaaradda, maantana ay mas'uuliyiinta cusub ay xilka ku wareejinayaan ay ka filayaan in ay meel fiican gaarsiin doonaan. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad, oo isaguna goobjoog ka ahaa munaasabadda xil wareejinta, ayaa xusay in mas'uuliyiintii maanta xilka wareejisay ay ahaayeen rag mas'uuliyiin ah, isla markaana shaqada loo igmaday si wanaagsan u haya. Kuwa maanta yimidna ay yihiin rag aan wasaaradda horey uga fogeyn. Muddadii halkan aan joogay wasaaradda iyo ka horba intii aan hadda dowladda ku jiray, dowladdan ku dhex jiray markii horeba intaan wasaaraddan imaanay, runtii waxaan xusayaa inay ahaayeen odayaal u shaqaynaya danta guud, ama xafiiska xisaabiyaha guud ha noqoto oo xisaabiyuhu oday u ahaa, ama agaasimaha ha noqoto, ama labada ku-xigeen ha noqoto. Maanta waxay u tahay tusaale, ma ahan oo keliya Puntland iyo hay-adaha kala duwan ee Puntland, laakiin waxay tusaale u tahay oo hoggaan u tahay Soomaaliya guud ahaanteed. Maxamed Siciid Yuusuf, SAB TV, magaalada Garowe. واو واسبوع كيسو في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عاد وش بصير waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa.
labaatan baad ku shuban kartaa